reeban qoriga in la qaato isticmaalo gaadiid ciidan oo uu ku xiran yahay qoryaha dhashiikaha iyo qoryaha ka sii waaweyn ee ku xiran yahay reeban waxa reeban in la isticmaalo qoryaha baasuukaha dheh ama maxaa la yiraahdaa RPG-ga dheh in magaalada lagu dhex laafiyado oo madaxa lagu ilaalinayo la dhaha reeban waxa kale oo reeban qoryaha dirandooriga u dhaco oo BKM-ka kamid ah iyo wixii lamid ah ayaa reeban in la isticmaalo maxaa la yiraahdaa waxya dadka hubkaasi isticmaali karo waa la sheegay oo xeerkii ku qoran tahay waxa la yiri ciidamada amniga oo howlgallada magaalada ka socda u idmana isticmaali karo waxa isticmaali karo oo markaasi la dhexmari karo ciidamada ee u kala gooshaayo gobolada bacdama ay socdaan howlgallo hubeysan oo argagixisada lagu la diriraayo maadaama ay socdaan waxa isticmaali karo ciidamada u gudbaayo laakiin waxa la socda taas inay magaalada ku la dhexmaraan shardiya la socdo oo ah in ay soo wargeliyaan cidda magaalada amnigeeda mas'uulka ka ah qof walba sida uu rabo iyo jantar rogan waa dhamaatay maxkamad ahaan annaga mushkilo weyn aan ku qabnay ilaa hadda kiisasa taagan in meel control ah inta ciidan yimaadaan la isku xabadeeyo markaas dad rayda ay ku dhintaan kadibna mas'uuliyadda cid qaadi lahayd waaya kana bilaabay iyo kana bilaabay anu istaajiyo la yaqaano taliye hebel ah ama mas'uul hebel ah asiga ma saaxibada ugu bilaabay leeyahay markaasna ay maxkamadda ku adkaato sharci ahaan in ay hesho cidda mas'uuliyadda rasmiga ah qaadi lahayd xaqi qofka dhintaan meesha ku baabaa saas darteed marka waxa la rabaa hadda kadib mas'uuliyad in la qaado talisada ciidamada ee halkan fadhiyo waxa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxa way saraakiishooda inay u sheegaan in ay qasabtaa xeerkan in la hirgeliyaa inay u sheegaan qofka inta qori culus soo qaatay dhig iyo dhigay la dhaho hadda kadib wax dhexda yaala ma ninkii wata mas'uuliyadda qaaday macna waxa mas'uuliyadda qaaday qofka meesha hubka la yimid ee dhig inta la dhahay ma dhigay dhahay qof kasto meesha ku dhinta mas'uuliyaddaas dhexda ma taalee ninkaas qaaday macna mas'uuliyiinta marka oo ilaalada loo idmaday wato oo ilaalada loo fasaxay oo hubka fuudato oo wadooyinka isticmaalayo waxa la rabaa marka ay ciidamada controlka joogo oo askarigaas maskiinka ah qoraxda joogo oo u yimaado waxa la rabaa inuu ixtiraamo inuu u hogaansamo tilmaamaha iyo amrada iyo talooyinka uu siinayo hay'adaha amniga ay bixinayaan inuu hogaansamaana la rabaa waxa la rabaa in uu ogolaado in la istaajiyo in la hubiyo la weydiiyo cidda uu yahay iyo meesha uu socdo la ogaado waxa la rabaa mas'uuliyiinta ciidanka naftigooda waxa saaran mas'uuliyadda iyagana qofka mas'uulka ah iyo qof kasto muwaadin ahba gaar ahaan mas'uuliyiintu inay siiyaan tixgelinta ay mudan yihiin iyo mudnaantooda inay siiyaan oo aysan qofka mas'uulka ah sidii rabaan aysan oga naftigooda u la hadlin